السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن أصحابتا وادي سلانيت مع وناكسن ما أنت واحد كوسجون هاي جوب تلحيسات كعانكا كترسن قبل كجبلي دار جارهان تجمد عربسيو لو يغانا دجح كورة وميل دجحان جسا هذا له أو بورا أو إمكا مدة ساعات كلهم دجحان تساوي ميرسينني واحد كوسجون إمكا ميل كمدا ميلها أثارتي ورقم مقطع مش هو ميل dhagaxaanteedu mucjiso tahay oo ilaa iyo dhowr kiiloomitir isku weerar dhagaxaantu yaalaan imkan waxa ku suganahay meel kamid ah meelaha asaartii hore laga arko waxa kamid ah qoraalada halka ku qoran aan imkan la fahmi karin dhagaxan guri ahaan buu dhisan yahay waxaad moodaa in la qoray oo guri laga dhigtay aniga saaxiibkay imkan waxa isku daynaa inaanu marno godkan oo ay asxaabtii hore martay ayaan doonaynaa inaan ka dhaxbano dhagaxa inta leeg baa laga dhaxbaxaya marka aanu inaan ka dhaxbaxnaan doonaynaa oo calool adeeg baa la rabaa meel madow baa la maraya marka Axmed ma maxad malay meeshu waa cabsi qalbo in isku eegina soo ma marnada waan marna waan marna miyaad iga horeeyay talo ayar baqbaqaya ana kaga horeeyay doonale ana kaga horeeyay halkan waxa ay tahay guri laba maqsina soo ma marka maqsin ka horaan ma gelanayo xagga kala la rabaa inaan ka baxno waka inna mari ayib saaway kulli laba lagu wada mar kare bye bye dio imikana waxaynu ku guda jirnaa dalxiiskeenii waxaynu la kulannay qaar ka mid ah dalxiisayaasha oo goobtan dhagaxaanta ku dalxiisaya iyo dhagax kuure oon kolba siryoon baa la iska soo baxayaa mid ka mid ah imika la taagannahay walaal magacaaga soo dhow marka hore sheegin magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Aadan waxaan u dalxiisnay banay dhagax kuure oo meelaha asaariya qoladiina soo boqotay naga duubsanay Shabeel Media aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa meesha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kamid ah waxyaabaha ugu qurux badan ee aad ku aragtay meesha ay soo jeetay in dareenka soo jeetay waxa kamid ah horta dhagaxaan aad u waaweyn oo ilaahay macbuudka dhigay meeshan iyo waxyaabo yar oo ku sawiran oo waxyaabo dadkii hore ku sawiray leeyahay qurux badan tahay dalxiiskina aad ugu macaanta jawi aad qurux badan way leedahay intaasaan ka maasha aad badan ninkan wuxuu kamid yahay ilaaliyaasha meesha ka socda wasaaradda deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda dalxiiska aan idhaahdo waaxda dalxiiska ayuu ka socdaa waana ilaaliyaasha meesha mas'uulka nadaafadeeda ilaaliya dalxiiska ilaaliya ku soo dhawaad magacaaga waan ku dhawaad Maartay Yuusuf waxaanu ka tirsanahay waaxda dalxiiska ee halkan waxa weeyaan goob dalxiiska dhagax kuure gaar ahaan waxa weeyaan oo buurta ugu qadiimsan idin sheego dalxiisayaal aad u badan ayaa taagan dhinacyada dhammaantood waxay soo dalxiiseen oo ay niyadooda ka muuqata farxad iyo niyad samaan xagga dalxiiska gaar ahaan meesha labaad ee Somaliland ugu quruxda badan leh xagga taariikhda waxaana leedahay dhagaxan waaweyn iyo sawirro qadiimi ah oo ilaa waqti hore soo jiray oo in badan ilaa maalinka maanta lagu soo qulqulayo oo madana ay soo jeetay cadaan iyo madowga intaas ka bixaan wariga walmada inuu sidii hore ahayn runtii ima maalinta ka dambaysa way soo kordhayaan way soo saayidayaan waan ku faraxsanahay in cid kasta noo timaado waan soo dhaweyn aad masan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xamse Axmed Maxamuud runtii waa meel aad u qadiimi ah oo aad u qurux badan wada aragtaan oo dhagaxaan waaweyn oo farshaxan leh oo qaarkood aad ka baqan sameeyay kugu soo dhacaan oo dhagax yar naqan hayo ayaa kamid ah waa meel aad u jooy macaan maanta galin horaan imanay waan ku qadaynay aad baan ugu faraxsanahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waa meel lagu soo dalxiisi karo oo maalmaha ciido kale la iman karo
mukhtaar iyo axmed waa saaxiibadii la socday iyo cabdikariin oo kamarada naga duubay guri baynu soo aragnay dhagaxa weynaa hoostiisa iminkana guri kale halkana oo dhagaxan hoostiisa dhagaxan weynaad arkaysaa waa guri la geli karaba marka isagana waxaan jeclaysanay inaan soo galno horta bal idinku ka warrama maad meesha ku arag wallaahi waa guri caadi ah oo nala arki doontaan gurigu siduu eegyahay hoostiisa marka la galo ansaartii qadiimigeeda la sheegay uu leeyahay anu waxlaadan xasuusto waxaan iska sitaa caleen yar balweyna geli doonaa na soo raaca guriga haalay mukhtaar weli dhagax ka weyn dhagaxaantan ma arag may wallaahi guud ahaan marka la hoos galo dhagax ka weyn maan arag waayo waan maqli jiray un ansaar qadiimiya jirta dhagaxaan hooloo la hoos galaa jirta qaar sheekh cumar qodayba halkaa ka jira waxaasoo dhan hore uma arag maantaanu aragnay oo aynu joogno dhagax kuure bal dee daawadayaashuna hay nala arkaan dhagaxu siduu eegyahay aad buu weyn axmed baa dhex reersanayay ilaa saaka horta kolley sidaynu wada ognahay khadarow intaynu ku jirnay deegaankan dhagax kuure ama buurtan korkeeda aynu soconay godad badan iyo dhagxaan guryo weeg oo badan way soo marray hadda kanaynu imika tusanaa bal dadkayna daawanaya waxaan leenahay la socod wanaagsan cabdikariinow imisa dhagax baad ku dhacday saaka soo soco haddaba raggu waa galay godkii gurigii waa galay asaar haddaad maqasho horta waa taariikhdii hore iyo meeshan waxaa la sheegay inay jirta ilaa 6,000 sano sida taariikhyahanadu sheegayaan meeshuna waa meel dhagaxaanteeda giddi maantaanu dhex soconno wax la dhammayn karaya maaha waa 100 buurood istaba yaal dhulka agagaarkeeda buuro weyn macluuma yaalaan waa isku fadhigan unbay buuraha intan laale ku yaalaan buurana maaha waa dhagaxaan aad arkayso istul saarsaaran oo ilaahay istul saarsaaray waa guriga iminka halka hadduu roob soo daato dee waxba iminka waan iskaga jiranaa roobka ma ogaanayno sida imka inoo sheegay ninka meesha joogaana goobta dalxiiskeedu aad buu kacay oo aad baa loo yimaadaaba la yidhi waxaan leenahay hala dalxiiso waa asaartii hore iyo waxyaalihii imka waka halkaa imika qoraal baa ku qoran waxaa aad yuu u dafoorata moodo waa qoraalladii hore halkanoo kale qoraal baa ku qoran waka halkanoo kale qoraal baa ku qoran aan u fadhiisto waka ها قرآن لم كان الأخير كريم بقى قرآن وخا عسان خا ها صورة ها قرآن يصور لا بدو إنه قصة صور كعمير نجح واحد مودة إن لا قري والجوري حال لا تياصلي يكيه هرن سوارك نبا وأنا بدين هنا نجحان تقارن لكل كريم بتشيله سيدات كديان وشيء أنا ودي عن ميلو مرة ولا هنا نجحان تايمك كان ضرورة مودو إسقى ضرورة بالمودة ونجحان تقول بالله أنت داير لي يكون حاجة نجح حاجة إمك كوري بنسكيتشنا هبيا أو هاد يروب يا محمد نقص الديني المركا رجوع الدالي